daawadayaal ku soo dhawaada idaacadda codka Soomaaliyeed halka waxaan ku duubayaa barnaamij degdeg ah oo propagandadii heegada oo markay noqotay naflacaari ka maarmi weyday cod samays ama warxumo tashiil disinformation horaan uga hadlay warxumo tashiilka aan u sharaxay iyadoo waxa markaan ka hadlayaaba aanay taagneyn samaynta codka technology-ga samaynta codka waxa lagu sameeyaa waxa la yiraahdo layerbed AI ama artificial intelligence taasoo macnaheedu tahay 5 second oo kaliya marka qofka laga helo hal sentence oo cod ah oo isagu leeyahay oo original ah tusaale ahaan magacaygu waa Maxamed intaas oo kaliya ayaa loo baahayay wax allaale iyo waxa inta ka dambeeya database-ka ay ku jirto software-kaas ayaa sameynaya oo u bedelaya hadalka qof kasta oo hadla wuxuu noqonayaa hadalkaygii waxaan doonaan ku hadlayaa waxa kale oo la sameyn karaa in la qoro imika waa laga gudbay xitaa in hadal kaliya lagu cabiro qoraal ayaa la gelinaya qoraalkaas ayaa codka imika idinku hadlayo ku soo baxaya ultra realistic voice and text to speech codkii dhabta ahaa iyo qoraal oo loo bedelayo hadalkii qofka 3 sentence laga duubay 5 second ay process-kaasi gabigiisu ma qaataa inta in ka badan ma qaato marka lagu sameeyo account-ka ee codkaaga la geliyo qofka codkiisa la geliyo 5 second gudihii ayuu qaataa saddexdii erey ee hore aan anigu lahaa marka laga tago codka kale oo dhan aniga ayaa leh dhumucda iyo dherarka ayaa bini aadanka codkiisu ku kala duwan yahay oo berigii hore lagu kala saari jiray labadiiba waxa sameynaya artificial intelligence-kaas oo tabtii codkii Ilaahay ugu abuuray u wadaya oo halka marinaya marka waxa ka soo baxay oo dhami waa synthetic voice waa cod la abuuray oo ah kii aniga aan lahaa oo la replicated ama cloning lagu sameeyay oo la dhalangediyay oo kaygii laga dhigay saddex shokoor ajalad baa itimi ay heegadu soo samaysay oo heega ii soo dirtay waliba wax naga dhaxeeya aanay jirin oo lagu soo duubay madaxtooyada Hargeysa ee heegada 3 sano la diyaarinayay in lagu aamusiyo idaacadaha dulmidiidka ah ee u hadla dadka dulman markii aan soo arkay aan wixii dhageystayba meel la uma dirin qofna kala ma hadal waan iska masaxay waayo disinformation-ka aqoon badan ayaan u leeyahay 30 sanadood soo socday waxaan laakiin imika arkayay dad dangagaala ah oo iyagu shaqadii laga rabay ku qabanaya lacag la'aan isu dirdiraya buunbuuninaya halkan ay ka soo baxday halkan ay ahayd sanadkii 2009 bay ahayd 2030 kay ahayd waxa la doonayaa in laga leexiyo foxing meeshii aad ku jihaysnayd oo aad isku mashquusho laakiin waxaanay fahmin in caalamku halka maanta uu ka soo gudbay ay dadku hal salli ku wada fadhiyaan waxaasna idaacad iyo qof toona aanu ku xidhmaynin beeni raad ma leh ee Soomaalidu hore u tiri waa aragtaano watii la isku soo sawiray ninka xisbiga wadani la yiraahdo Cabdiraxmaan Ciro markii doorasho ku sheegtay ay socotay isaga iyo ninkii ra'iisul wasaaraha ee Ina Cabdirashiid ee waliba lagu soo sawiray iyagoo is ag fadhiya journal ka diiwaan gashan magaalada Nairobi ee $150,000 lagu bixiyay tiiba maantana cod la inoo soo duubay dad dangagaala ah oo dulman ayaana wixii fidinaya oo shaqadii u qabanaya sida sawirkaaba hore inoogu sii fidiyeen idaacadii xaqdirka ahaa markii dacwad lagala soo daalay ee meel walba laga dacweeyay ee been laga sheegay ee heese lagu dacweeyay ee wax allaale iyo wixii la rabay caalamka loo maray ee loo yaro loo qabsaday ee $100,000 lagu bixiyay ay shaqayn weyday ayaa iminka waxay nagu soo bilaabantay ajaladan la wareejinayo ee loo wareejinayo in dadka lagaga leexiyo wadadii ay haysteen Soomaaliya hore ugu maamaaday candana waa xubin waxa dhamaan kula talinayaa dadka dulmadiidkii inaanay noqon shaqaale qarsoon oo slave mentally maskaxda laga haysto oo aan iyaga lagu shaqaysan oo aan iyagana la isugu sii dhex shaqaysan iyagoo wax allaale iyo waxa ay qabanayaan aanay jirin oo ay ku caanbaxeen ba ummadani masiibada haysatay disinformation-ka ku dhacay ay tahay inay iyagu noqdeen shaqaale u shaqeeya heegada dalkoodii iyo dadkoodiiba baabisay ee haysata faafinayana 24 saacadood waxa iyagu duubaan u daawanaya ama sii diraya wixii ummadoodu ay duubtayna lagu diray ee ka cararaya
saami ka ogtihiin maxkamadaha caalamiga ah waxaa lagu soo bandhigay oo la isku qabsaday oo FBI da la geeyey oo la verify gareeyey oo la caddeeyey dad cod laga soo duubay oo lagu sameeyey labor beardka aynu ka hadlayno ee artificial intelligence-ka oo maxkamadi ku dhacday oo dib loogu celiyey FBI da oo database-kii iyo timing-kii iyo GPS global positioning-ka waqtigii la duubay iyo halkay ahayd wixiiba markii dib loo eegay la ogaaday qofka waa codkiisii lama dafiri karo la ogaaday inay tahay waxaan soo baxay software-ada midka soo baxay ee AI da in lagu sameeyey sababtaa awgeed ayaa mamnuuc looga dhigay cod inuu qof maxkamad qof markhaati uu kaga noqdo waqtigan iminka aynu joogno wadamada horumaray ilaa waraaq maxkamad laga soo qaatay oo hay'ad sharci ah ay duubayso oo database-keeda oo dhani uu available noqon karayo maaha huha meel la isugu soo duubay waxay soo xusuusisay ninkii Indonesia haysan jiray korneelka ahaa Suharto 1969kii markuu yimi Moscow arrin la mid ah ayay ku samaysay KGB du maana afraadii markuu ka baxayay ayaa loo keenay oo lay waa kan adiga oo la jooga marka arrintani ma jirin intelligence warigaas muu soo bixin oo lama aqoonin technique kale ee disinformation-ka ay isticmaali jireen ayaa lagu isticmaalay laba dumar ah ayaa xalay oo dhan la joogtay waana ku kan sawirkaagi marka waxaas ay kugu soo baxsadaan maxaa la sameeyaa xiniya adeeg baa la yimaada wuxuu labada cajaladood aad duubteen laba iga dhiga mid ka soo daya telefishinka Moscow oo umada tusa umadeedu waxay taqaanaan nin baa hayana dumar aan waxbana dhex marine si dadka igu farxaan midna si aniga si qaadanaya oo Indonesia la tagaya oo dadkayga tusaya in aan nin odaya wali ahay oo raganimadiisii aanay dhimanin dhamaantiin waxaan idin sheegaynaa inaa ka digtoonaataan oo aan loo adeegsan idinka la idin sukin adeegsanin inaan noqotaan dadkii faafinayay propagandada lagu wado ummadda la haystayaasha ah ee dulmidiidka ah iyo wararkooda oo aydan fidinin dhammaanna waxaan dadka kula tilinaya inay Google gareeyaan oo ay galaan oo qof waliba eego iminka qof kasta oo idiga midow cod aad leedahay ii soo dir 1 second 10 seconds 15 seconds 25 seconds cod aan ka badnayn oo af allaale iyo afka aad doonayso ama Soomaali ama India ii soo dir waxaan kugu soo celinayaa codkaagii oo hooyada mar telefoon kula hadlayso mar aad aniga la hadlayso mar aad islaantayda caayayso mar aad adigu is caayayso marka waxaan u leenahay ummad yahay ka digtoonaada disinformation-ka dhammaantiin waa mahadsantihiin Ramadaan Kariim